xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta kala fadhi ku yeeshay aqalka baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kulankaas oo ahaa in lagu ansixiyo madaxweynihii hore dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo inta badan ka soo qayb galeen xildhibaanada dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ayaa kulankaasi waxaa ka hadlay isla markaana mikrofoonka si degdeg ah ku qabsaday isla markaana halkaasi eedayn lagu soo jeediyay madaxweynihii hore dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ergey gaarka arrimaha abaaraha Soomaaliya haatan ah xildhibaan ka tirsan dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya isla markaana soo saaray isla markaana si kul uga hadlay wararkii 2012 lagu qaaday gurigiisa ka degnaa magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in sharci darro ay tahay in gurigeyga soo weeraray buu yiri in maanta ay baarlamaanka dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya xilligan ay ansixiyaan wararkii ugu culusay afka ah ayuu ku qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame siyaasiga iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ahna ergey gaarka arrimaha abaaraha oo hore u magacaabay madaxweynaha dalka mudane حسن الشيخ محمود عبد الرحمن cabdishakuur warsame ayaa toddoba qodob oo ku saabsan dhibaatadii loo geystay ku soo madhay istaaqalka golaha baarlamaanka dhexdiisa waxaana uu sheegay in khaladkii laga galay in la haatan aan laga baarmarin isla markaana aan laga dhaqin waxaana uu madaxweynaha hore dalka ku eedeeyay in falkaas isagu ka dambeeyay maadaama maantana oo la hor keenay xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay u ansixiyaan waxaana uu sheegay Cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku tilmaamay nasiib darro in dhibaato badan dalka geystay in maanta la ansixiyo Cabdiraxmaan cabdishakuur warsame siyaasi ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa geesta kale waxa afka ku dhuftay in nasiib darro ay tahay in maanta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalka Soomaaliya xilligan laga dhigo madaxweynaha laga dhigo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa buuqiyay waxa uu ka dhaxbuuray aqalka baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa inta badan waxa xildhibaanadu ay aad uga hadlayeen xaaladda cakran ka dhex jirta aqalka baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo gudoomiyaha baarlamaanka oo markii dambe foon ka qabsay isla markaana Cabdiraxmaan loo sheegay in uu hadalka joojiyo maadaama uu hadalkiisa dhameystay isla markaana uu joojiyo daraadha cabdishakuur warsame in ay nasiib darro tahay buu in maanta dib loo ansixiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu noqdo xildhibaan ka tirsan dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya